haatan waxaan ku tusi doonaa muuqaal kale oo argagax ah. waa kana si fiican u daawad waa transaction korkaas ay ku qoran tahay transgender health education align kor ay ku qoran tahay daawadayaal. kaas aan dhigi karno waxa ummadda dhan ay ku tilmaamayaan ay yihiin mid sax ah. haddaba ogow calaamada gabadha funaanada gaduudan wadata waa tiirka ula baxeen gaalada masiixiga ah waa geedkii nabi ciise ay aaminsan yihiin waana loogada iskuulka abaarso. okay mareykanka ardaydani la yiraahdo Zaare Xasan iyo Zaki Muuse waxa ay ka soo baxeen iskuulka ama ka qalin jibeen iskuulka abaarso waxaana tababar dheeri ah ay ku soo qaateen wadanka Mareykanka ah ayagoo dib ugu soo laaban doonaan Somaliland gaar ahaan Hargeysa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkan aan daawaneysaan waa Umar Oscar Channel iyo aniga Umar Oscar. fadlan hadda ku taamur ku rasmi muuqaalkan u soo gaaro walaalkaaga u share gareey muuqaalkan like noo saar hadii aad awood inaad follow noo soo dheh follow noo soo dheh barteena page-ka Umar Oscar Channel aad u maasantahay. haddaba waxaan ku soo bandhigi doonaa cadeemo ku saabsan maamulada iyo gudoomiyaasha ama xoghayaasha ama macallimiinta iskuulka barwaaqo iyo abaarso cadeemahoodii oo cad ayaan idin soo bandhigi doonaa. aan markaasi ugu horeeyo sawirka koowaad waa gabar la yiraahdo Zaare Xasan iyo 19 san jir ah iyo Zaki Muuse oo asagana 19 san jir ah ayaa markaasi blankoodii ama waxoodii ay barteen ka soo barteen Holy Cross ay soo barteen in ay markaasi dib ugu laabtaan dalkoodii sida hadda ay meesha ay ku qoran tahay. taariikhda waxay ahayd October bisha 5 2017 ayay ahayd ay soo saartay jaamacadani Holy Cross waa jaamacad oo barta ama laga barta sheekhnimada ama maadiga katalogiya ama bibleka wax la dhaho waa iskuul ku yaala ama jaamacad ku taala Mareykanka. ardaydani la yiraahdo Zaare Xasan iyo Zaki Muuse waxa ay ka soo baxeen iskuulka ama ka qalin jibeen iskuulka abaarso waxaana tababar dheeri ah ay ku soo qaateen wadanka Mareykanka ah ayagoo dib ugu soo laaban doonaan Somaliland gaar ahaan Hargeysa si ay wixii ay u soo barteen ama gaalnimada ahaa ama munaafiqnimada ahaa ama transsexualka ahaa markaasi diinta Kristaanka ay qabta in isguursadaan ama naag iyo naag ay markaasi isguursan karaan in ay markaasi ka dhaadhiciyaan bulshada ee ebel ka imaadeen. waa sawirka koowaad daawadayaal. sawirkan aad u jeedaan waa saddex gabar oo Soomaali ah mid dhexda ku jirtana ay tahay ay wadato calaamada Kristaanka waxayna sidataa calaamad Kristaanka ah. gabadha kale waxay xiran tahay funaanad ay ku qoran tahay abaarso school ay ku qoran ayay wadataa. haddaba iskuulkani waxa lagu haayo ma wax indhaha aan iska indha tiri karnaa mise waa wax oo cad oo saxan oo markaas aan dhigi karno waxa ummadda dhan ay ku tilmaamayaan ay yihiin mid sax ah. haddaba ogow calaamada gabadha funaanada gaduudan wadata waa tiirka ula baxeen gaalada masiixiga ah waa geedkii nabi ciise ay aaminsan yihiin waana loogada iskuulka abaarso. okay aan u gudubno sawirka kale. gabadhan aad u jeedin waa gabadha markaasi mashruucyadan dhan kala hageysa waa gabar u fadhida magaalada London. ardayda markaasi oo meesha ka qalin jibisa waa qofta kaliya soo dhabaysa ama u qaabilsan wax gudbinta. waa gabar Ethiopian ah waxaan xiran tahay calaamada Kristaanka ah. haddana sawirka kale aan idin tusi doono waxay tahay Kristaankani oo sana u taala maxaa keenay Hargeysa International Book Fair maxay uga qayb gashay. waa sawirkan aad ku arki doontaa waatana iyadoo haddana xijaaban iska dhigaysa in ay markaasi ay tahay qof daacad ah. waa sawirkan waxayna ka qayb gashay 2021 Hargeysa International Book Fair ay ka qayb gashay. okay waxaan idin soo bandhigi doonaa maamulada iskuulka Barwaaqo University waatana balfiiri iyo waa gaasha weyneed baadirada weyneed ee Joy la dhahayo iyo naagtaas kale magaceeda oo aan
aniga aan halkan aan ku heenin balse oo ah maamulada iskuulka Barwaaqo si fiican ujeed u fiiriya haatan waxaan idin tusi doonaa iyadoo u ololeynaysa ama hormuud ay u tahay dadka geyga ah iyo dadka lesbianka ah iyadoo u ololeynaysa waatan sawirka bal fiiri waatan sawirka waa naag u ololeysa in laba jinsiyood isku mid ah ay isguursan karaan waa naagta u ololeysa waxa u dhaxay laba farqood hadaba iskuulka Abaarso iyo Barwaaqo waxa ka socda ma dhihi karnaa daawadayaal waa mid sax ah marba hadii cadeen aniga gacanta aan ku haysto waxaan aaminsanahay wax laga sheegayo in iskuulka Abaarso iyo Barwaaqo ay tahay mid sax ah haatan waxaan ku tusi doonaa muuqaal kale oo argagax ah waa kana si fiican u daawad waa transaction korkaas ay ku qoran tahay Transgender Health Education Alliance kor ay ku qoran tahay daawadayaal u fiirso waa Transgender Health Education Alliance waxaana ka dhex muuqda naagta maamulada ka ah iskuulka Barwaaqo ayaa markaasi ka ah hormuud ka ah waa dadka isbedela tusaale nin ayaa wuxuu isku bedelay naag iyo naag ayaa isku bedeshay nin waa dadka u ololeeya ay xuquuq si ay ku siin lahayd dadkaasi ay adduunka oo dhan ay ka dhacsiyaan haatan waxay nagu yimaadeen ama nagu timaaday dalkeena ay timaaday in ay markaasi baadiyeeso ummadeena Soomaalida 100% islaamka ah hadaba muuqaal kale oo waxaan ku tusi doonaa daawadayaal waana muuqaalkani Muuse Bixi Cabdi bal u fiirso waa Babel waa family Babel waana kutub ay leeyihiin Kirishtaanka calaamada ku yaal geedkane iyo calaamada Barwaaqo oo ay isku mid yihiin waa logo ay isku mid yihiin daawadayaal okay waxa dhacday hadana in markaasi waxa dhacday in maamulada iskuulka ah Barwaaqo iskuulka waatan iyadoo dhex fadhisa meesha ay ardayda wax ku baran karta ama wax ay ku baranayaan iyadoo fadhisa way sawirkan waa gabadha ama naagta u ololeysa transgenderka oo laba qof isku jinsiga ah in ay markaasi nolol wadaagi karaan waa naagta u ololeysa hadaba waxa lagu haysto wariye samafale Coldoon arinta uu ku dhiiginaay ama arinta uu markaasi oo u taagnaay oo iskuulkaani cambaareenay ma mid saxba ma waa mid khalad hadaba daawade muuqaalkaani ama cadeyntaani waxay cadeynaysaa in markaas waxa Coldoon uu ka hadlay ay yihiin wax sax ah aniga markaan arkay sawiradaani waxay ila noqotay wax sax ah waa sax iskuulka waxa lagu haayo waa sax labada iskuul Barwaaqo iyo wax lagu haayo waa sax hadaba waxaan kaliya aan ku badbaadi karnaa in aan codkeena baraha bulshada aan ku baahino fadlan aan ku baahino codkeena iyo commentigeena aan ku badino sawirradana aan faafin daawadayaal muuqaalkan share garay aad ayaad u maasantahay daawada